wuxuu isku dayay dilka rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh. Thumaama bin Uthaal ma uusan aqbalin dhambaalkii u soo diray rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh, isagoo iska dhiga tiray dacwaddii xaqa iyo khayrka xambaarsaneed. waxaaba ka sii daran isagoo shaydaankiisa tusay inuu isku dayo dilka rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh iyo sidii uu u wiiqi lahaa dacwaddii uu rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh xambaarsanaa. wuxuuna Thumaama u kuurgalay sidii uu ugu takhlusi lahaa rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh. eebbe subxaanahu wa tacaala ayaana nebigiisa ka badbaadiyey shartii uu maleegay Thumaama bin Uthaal. مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. السلام عليكم. sanadkii lixaad ee hijriyadda wuxuu rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh go'aan ku qaatay inuu ballaariyo dadaalkii ugu jiray fidinta dacwadda islaamka, isagoona 8 dhambaal u kala diray boqorada carbeed iyo kuwa cajamta ah. wuxuuna dhambaaladaasi ugu yeereeyey boqoradaasi inay soo galaan diinta islaamka. boqoradaas loo diray dhambaaladaasi ayaa waxaa ku jiray Thumaama bin Uthaal al-Xanafi. layaama lahayn inuu Thumaama ka mid ahaa madaxdii iyo boqorada carbeed ee wakhtigii jaahiliga ee islaamka ka hor, wuxuuna ka mid ahaa madaxdii reer bani xaniifa. sidoo kalena wuxuu ka mid ahaa boqoradii reer yamaam ee aan amarkooda marnaba la khilaafin. wuxuu isku dayay dilka rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh. Thumaama bin Uthaal ma uusan aqbalin dhambaalkii u soo diray rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh, isagoo iska dhiga tiray dacwaddii xaqa iyo khayrka xambaarsaneed. waxaaba ka sii daran isagoo shaydaankiisa tusay inuu isku dayo dilka rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh iyo sidii uu u wiiqi lahaa dacwaddii uu rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh xambaarsanaa. wuxuuna Thumaama u kuurgalay sidii uu ugu takhlusi lahaa rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh. eebbe subxaanahu wa tacaala ayaana nebigiisa ka badbaadiyey shartii uu maleegay Thumaama bin Uthaal. hase yeeshee Thumaama bin Uthaal haddii uusan ku guulaysan dilka rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh, waxaa hubaal ah inuu ku guulaystay jirdilka iyo dhibaateynta qaar badan oo ka mid ah asxaabtii rasuulka. wuxuuna Thumaama u tafixiirtay leenta saxaabada jeer uu sabab u noqday inuu laayo qaar badan oo ka mid ah asxaabta. dhinaca kale wuxuu baneeyey dilka rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh, isagoo arrinkaasi ogeysiiyey qabiilkiisa reer bani xaniifa. safarkiisii Maka wakhti badan kama soo wareegin jeer uu maalintii dambe Thumaama bin Uthaal go'aansaday inuu u soo kicitimo Maka. wuxuuna Thumaama bin Uthaal ku soo ambabaxay gobolkii Yamaam, isagoo ku sii jeeday xagga magaalada Maka. wuxuuna naftiisa ugu sheekeeyey inuu ku soo dabaafi doono hareeraha Kacbada iyo inuu qowrici doono asnaamta ku hareeraysan Kacbada. wuxuu gacanta u galay muslimiinta goor uu Thumaama ku jiray socdaalkiisa una dhow yahay magaalada Madiina ayaa waxaa isagoo aan filanaynin ku soo baxay koox ilaalo ah. ilaaladaasi oo ka mid ahaa ilaaladii ciidamada muslimiinta, waxayna wakhtigaasi ku gaafareegayeen degmooyinka ku dhowdhow magaalada Madiina si ay uga hortagaan haddii uu cadowga magaalada soo galo. waxayna ilaaladii soo kaxeeyeen Thumaama bin Uthaal, weliba iyagoo aan aqoon u lahayn ninka ay soo qafaasheen. markii ay yimaadeen Madiina waxay Thumaama bin Uthaal ku xireen mid ka mid ah tiirarkii masaajidka. kadibna waxay la sugeen rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh balse uu go'aan ugu gaaro arrinkiisa. markii uu yimid rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh uuna damcay inuu soo galo gudaha masaajidka, waxay indhihiisu qabteen Thumaama bin Uthaal oo ku xiran mid ka mid ah tiirarka masaajidka. rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh wuxuu weydiiyey asxaabtiisa, ma taqaanaan ninka aad soo qabateen? asxaabtu waxay ku yidhaahdeen, maya rasuul allow. wuxuuna rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh ku yidhi, waa Thumaama bin Uthaal ee ahaa reer bani xaniifa ee wanaajiya la dhaqankiisa. intaa kadib wuxuu rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh u laabtay reerkiisa, isagoo ku yidhi, soo arooriya wixii cunto aad haysaan, waxaadna u geysaan Thumaama bin Uthaal. maamuusadii uu rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh uu maamusay Thumaama bin Uthaal. dhinaca kale wuxuu rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh amray in hashiisa loo liso Thumaama bin Uthaal subaxii iyo galabtii, loona geeyo si uu u cabo caanahaasi. maamuusadaasi iyo wanaaggaasi uu u sameeyey rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh Thumaama bin Uthaal waxay dhacday ka hor inta uusan rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh la kulmin amaba uusan la hadlin Thumaama bin Uthaal.
intaa kadib wuxuu rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh soo aaday xaggii Thumaama isagoo doonaya inuu si tartiib ahaan ugu yeero diinta islaamka. wuxuu rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh ku yidhi Thumaama, maxaad haysaa Thumaamow? Thumaama wuxuu yidhi, waxaan hayaa khayr Muxammadow, haddii aad idisho waxaad dishay nin dhiig idinka galay, haddaad gallad samaysidna waxaad ku galladaysatay qofkuugu mahadiya, haddiise aad doonayso maal iweydiiso, inta doonta ayaa lagu siiniyaa. wuu isaga tegay rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh Thumaama isagoo Thumaamo ku xidhan tiirkiisa 2 maalin. halkaa ayaana loogu geynayay cunno iyo cabitaan, loona soo lisaya hashii rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh. maalintii dambe ayuu rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh u yimid Thumaam, wuxuuna ku yidhi mar kale, maxaad haysaa Thumaamow? Thumaamo wuxuu yidhi, ma hayo waxaan ka ahayn hadalkii aan horey kuugu idhi, haddaad gallad samaysid waxaad ku galladaysatay qof kuugu mahadinaya, haddaase i dishid waxaad dishay nin dhiig idinka galay, haddiise aad doonaysid maal iweydiiso, inta doonta ayaa lagu siiniye. haddana sidoo kale ayuu isaga tegay rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh. mar kale ayuu u yimid isagoo ku leh, maxaad haysaa Thumaamow? wuxuu yidhi, hadalkii hore baan hayaa, haddaad gallad samaysid waxaad ku galladaysatay qof kuugu mahadinaya, haddaase i dishid waxaad dishay qof dhiig idinka galay, haddiise aad doonaysid maal iweydiiso, inta doonta ayaa lagu siiniye. intaa kadib wuxuu rasuulka salawaatullaahi wasalaamun calayh jaleecay asxaabtiisa, wuxuuna ka yidhi, iska sii daaya Thumaama. asxaabtii waxay xargaha ka fureen Thumaama, kadibna sidii ayay ku sii daayeen. la soco qaybta 2. muuqaalka intaa ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.